السلام عليكم دمان أصحابتا ku xiran channelkeena Faa'iido Media haddii aad ku cusub tahay channelka nagu soo biir haddii aad horena la joogtay like maanta insha Allah waxaanu ka hadli doonaa sheekadii labaad ee guusha ninkan ka sheekay doona insha Allah wuxuu noqon doonaa Jack Ma ay noqon doonaa in la dhaho sheekadiisa guusha ayaan ka sheekayn doonaa insha Allah ta'ala Jack Ma waa muwaadin u dhashay dalka China kaasi oo ku guuldareystay inuu ku biiro college-ka tiraba 3 jeer ugu dambeyn wuxuu si diriqiya u dhaafay imtixaankii kadib markuu sameeyay diyaarin iyo dadaal aan caadi dhaafsan wuxuu isku dayay inuu shaqo ka helo maqaaxinta lagu kariyo laakiin badankoodu way diideen inay ka shaqo galiyaan kadib markii codsiga badan oo shaqo meelo kala duwan u dirsaday ee loo diiday ayaa wuxuu go'aansaday in shaqo macallinnimo raadsado sababtoo uu ku guuldareystay inuu shaqo taadhaanta helo Jack Ma ninka la dhaho wuxuu dhigi jiray luqadda Englishka isagoo qaadan jiray lacag ka yar $10 bishii ka hor intii aanu bilaabin dhigista luqadan Jack Ma wuxuu aad u jeclaa inuu hormariyo habka ugu hadlay luqadan waxaan 45 daqiiqo u kaxayn jiray baskiisa maalin walba hotel u dhow oo ay dad dalxiisayaasha ay ku soo degi jireen si uu ula hadlo luqadda Englishka tana iska dhiso Jack Ma ninka la kuma qaacsanayn shaqadiisa waxaanu go'aansaday inuu u guuro dalka Mareykanka si uu helo nolol ka fiican tii ku nool yahay wuxuu bartay computerka iyo internetka aad baan u jeclaa markii dambena wuxuu aasaasay website loo yaqaan alibaba.com kaasi oo u saamaxay ganacsiyada iyo shirkadaha ay ku kala ganacsadaan iskuna dhaafsadaan alaabta si online Alibaba wuxuu noqday ninka ugu taajirsan dalka China hantidiisuna maanta waxa lagu qiyaasaa lacag gaadhaysa $21 bilyan waxaa loo aqoonsaday inuu ka mid yahay 25 ganacsade ee ugu awoodda badan qaaradda Asia waayihii nolosha soo maray Jack Ma ayaan ka sheekayn doonaa Jack Ma horta muusan haysan lacag oo uu ku bilaabo ganacsi wuxuu ku shaqayn jiray mushaha aad u yar waxaan si diriqiya ugu biiro oo ugu guuleystay inuu ku biiro macadka tababarka macallimiinta inta waxa dheer in waddanka Shiinuhu aan waqtiga ahayn meel ku fiican in lagu noolaado ganacsiga laga bilaabo Jack Ma dhaqaalihiisa iyo lacagtu haystaba sanadkii ugu horeeyay kama badnayn intaad haysato maanta haddii aan intaad haysato ka badnayn ninkan wuxuu aad u jeclaa oo kaliya inuu abuuro ganacsi guuleysta taasina waa sababta uu raacay riidiisa aanu xaqiijiyay hadda waa maxay cudur daarada aad maalin walba naftaada u sheegtaa su'aasha barisweydii lacag kugu filan ma haysatid miyaa waxbarasho fiican ma haysatid miyaa dad kugu xeeran kuma dhiirigeliyaan kumana garab istaagaan miyaa Jack Ma mu hayso qof dhiirigeliya oo cadaadiya balse damac xoogan ee ku gubayay si uu u guulgaaro ayaa ka dhigay ninka uu maanta yahay sheekadan guusha Jack Ma ninka la waxaan ka baran karnaa ilaaba 3 qodob waa suurtagal qodobka waa suurtagal micni waxa weeye waxaa suurtagal ah inaad ka bilowdo ganacsiga meel aad u hooseysa oo aad noqoto billionaire ma aha millionaire Jack Ma wuxuu tusaale fiican u yahay dadka ka soo bilaabay meel ka hooseysa iskuna daray liiska ugu sareeya taajiriinta adduunka qodobka labaad horaa loo samayn karaa micnaheedu waxa weeye sharci maaha balse horaad ugu guuleysan kartaa Jack Ma wuxuu gaadhay guul isagoo jira da'diisu 30 miyada qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa marka ay riyadaadu iyo hamiga weyn yahay waxyaabaha hoose kuma dhibi doonaan Jack Ma wuxuu ku noolaa nolol adag mu ahayn qof ku nool nolol raaxo leh
maxay talahayn gaari iyo baan ay lacag u taalo toona, balse wuxuu caddeeyey adduunka in haynta dhaqaaluhu aanay caqabad ku noqon doonin haddii riyadaada iyo hadafyadaada waaweyn yihiin. intaasaan kusoo gabagabi doonaa sheekadii guusha ee Jack Ma.